wasiirkii arrimaha dibadda maamulka Somaliland oo Addis Ababa lagu xiray warba kaysa sawirka meeshan kaaga muuqda waa wasiirka arrimaha dibadda maamulka Somaliland Addis Ababa ayaa lagu xiray maxaa loo xiray wasiirka sidaynu ognahay waxa Addis Ababa ka socday shir ay ku midaysan yihiin dawladaha Afrika Muuse Biixi ayaa wasiirka arrimaha dibadda maamulka Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo wuxuu amar ku siiyay ugu yaraan shirku meesha uu ka dhacayo inay sawir ku soo galaan oo caalanka Afrikana ay geeskan iska dhigaan caalanka Somaliland ay geeskan iska dhigaan sawirna ay ku soo galaan si dadka Somalilandarka loogu marhababiyo loona sheego inay shirkii halka ka dhacay Somaliland xubinka ahado ka qayb galeen wasiirkii marka wargeysa ka soo duulay Addis Ababa ka soo degay oo tagay hoolkii shirarku ka dhacayeen ciidamadii ilaalada shirka ahay oo ahay ciidamo isku dhafo dawladahaas oo dhan ka yimid ayaa u diiday inay gudaha u galaan shirkii muddo saacada ay waxay taagnaayeen hoolka hortiisa ugu dambeyntiina wasiirka waxa uu suura gashay qaab qarsoodiya inuu meesha u galo madaxdii goobta shirku ka dhacayo joogtay ayaa askartii waxay ku wargeliyeen qof shakhsi inuu gudaha soo galay lana doonayay inay ciidamadaas gudaha soo galaan si shakhsiga u dalacaan isla markiiba ciidamadu markay gudaha soo galaan waxay ugu tageen ninkii sheegtay inuu yahay wasiir arrimaha dabadeed ee dawlad xibinka ah Afrika isla markiiba ninkii ay banaanka ku hortaagnayeen iyo gudaha ugu galeen waxaana amar markiiba lagu baxshay in ninkan la xiro inta shirku socdo 13 saacadood ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland xabsi oo ku jira waliba neefdiida oo xabsiyada dadka dambiyada gala lagu xiraa shirkii markii uu dhamaaday 13 saacadood kadib ayaa xabsigii banaanka looga soo saaray maanta markii waxay ka dhex taagan tahay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed oo markii uu Muuse Biixi heshiiska badda la galayay ku wargeliyay maadaama Addis Ababa xarunta Afrika tahay inuu geey doono shirarka Afrika oo meesha ka dhici doono inuu dhex fariisi doono ballanqaadkii ka mid ah dooda ugu badan oo maanta Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ay telefoonka isku weydaarsanayaan oo ay ku murmayaan oo ay ku kala xanaaqsan yihiin balanteeda iga baxda way guul darro midii ugu xumeed ayaa halka ka soo gaaray Somaliland sharaf iyo karaamana horta maahan dadka inay markii hore marhabaabiyeen rabeen Abiy Ahmed ayaa ka dambeeyay waxa meesha ka dhacay oo markii horeba been u sheegay oo xitaa ajantahan wax ka ogaay taasuna waxay ku xaqiijinaysaa Somaliland inaysan ku baraarugsanayn waxa ay Abiy Ahmed ku wada hadlayaan war wax run ma yihiin wax been ma yihiin ninkaan dhulaad siinaysaan badadka ijaaraysaan ciidamo badeed oo raba inuu geeyo horta waa inaynu qodob isla ogaanaa annaga iyo adunku nin marka nin saas oo kala aad badaada ku aaminto tiraada badaydan qayb ka siinaya oo balanta aan lahayn oo balantii kaaga baxay oo noocaasa alla ila sharaf iyo karaama maahan Muuse iyo Abiy Ahmed xalay iyo maantay teleefonkoodu ma kala go'in oo kala calaaqsan yihiin horta alaxasan kamana laaba karo Muuse Biixi heshiiskii uu la galay waxaan rabaa inaan ku daba qabto shirkii markii uu soo dhamaada madaxda Afrika cabashadii oo madaxweynaha dawladda federaalka u jeediyay oo ahayd in shirka lagu qashqashaaday madaxda Afrika shir bay ka yeesheen waxaana la qorsheynayaa in laga rari doono Addis Ababa maadaama madax lagu qashqashaaday in ay dhici karto mustaqbalka fogo kale in dawlad kale iyo Ethiopia markay isku dhacaan madaxweynahoodu saa loola dhaqmo kaliya ayagu ka jaxinjixmayaan madaxweynaha dawladda federaalka laakiin waa wax mar badan soo laaba kara ay leeyihiin ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya hadaynu nahay anaga wax isku kaana dhaama male waa inaynu nagu walaalowno inaynu walaalna waa inaynu garano waa inaynu dad wada nahay oo dal wada leena waa inaynu garano 32 sano ayaynu dawlad la'aanahay adduunka aqli ma aha si nadiif u fakarno oo inaanu walaalowno oo dawladda sanaayaa loo baahan yahay muuqaalkan duu soo gaaray walaalkayow waxaan ka codsan lahay hal sikin xitaa inaad Soomaaliya u duceysid oo tiraahdid dawlad caadil ah Allah na siiyo kaliya